السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا أمة الصوماليات meel kasta ay dunida dacalada ka joogto. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacayga waxaa la dhahaa Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad. cidii aan aqoonna waa iska baraya waxa la dhahaa Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad. waxaan ahay siyaasi arrimaha Soomaaliya ka faalloodo oo hadba wixii soo kordha markaas taagan baan ka hadlaa. hadda maanta waxaa soo kordhay maalmahan oo aan ka hadlayaa ciyaandhoweyd dalkeena Soomaaliya waxaa kusoo kordhay gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose ayaa ciyaandhoweyd dagaal ka dhaceen. dagaaladaas u dhaxeeyay maleeshiyaad dhigtay isbaaro inta u dhaxaysa degmada Walaweyn iyo Balidogle ama degmada tuulada Yaaqbari Weyn oo ka tirsan Walaweyn jidka xariiriya meesha la yiraahdo Walaweyn iyo Baydhabo ayaa waxaa dhigtay in muddo dadkuna ay ka cabanayeen oo dadku ay ka dacwoonayeen isbaaradaas sharci darrada ah mooryaan dadkana ay ku dhibaateynayeen oo maartay gabdhaha Soomaaliyeed xoogayeen oo ay ka qaadayeen lacag dhibaato ay ka qaadayeen. marka cabashadaas waxaa ka jawaabay dowladda Koonfur Galbeed, ciidamada qalabka sida Koonfur Galbeed gaar ahaan ciidanka daraawiishta. aad iyo aad baan u hambaleynayaa ciidamada geesiyaasha oo soo abjiray mooryaantii oo soo abaabulay ninka la yiraahdo Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan xildhibaan dowladda federaalka ka tirsan laakiin isku bedelay dagaal ooge asagoo da'daas jira oo dagaal ooge isku bedelay oo ummadda Soomaaliyeed dagaal iyo dhibaato qarniga hadda la joogo 2024 xilligan la joogo dhibaato abaabulaya oo beesha uu ka soo jeedo beesha Gaaljecel. waxaan leeyahay war ninkaas dagaal oogaha isku bedelay iska qabtaan leeyahay haddii uu argagixiso la dagaalamayo Hirshabelle uu ka soo jeedaa dowladda ummadda Soomaaliyeedna waxaan ogeysiinayaa deegaan doorashadiisu inay gobolka Shabeellada meesha la yiraahdo Hirshabelle inay tahay gobolka Hiiraan. marka haddii uu argagixiso la dagaalamayo dee argagixiso waxay joogtaa meeshuu joogo meeshu laga soo doortay joogtaa. waxay kaloo joogtaa Gaaljecel waxay degaan Jubbada Dhexe Jubbaland iyo Hirshabelle. marka maxaa maaragtay argagixisada uu la dagaalamayo xagee joogtaa isbaaro iyo waxaas mataqaanaa dulinimada oo maleeshiyaadka soo abaabulay Yaaqbari Weyn ka soo abaabulay. dowladda Koonfur Galbeedna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen. geesigaas haliyeyga waa salaamayaa, ilaahayna ha guuleeyaan leeyahay. dowladda Koonfur Galbeed waa salaamayaa, dhammaan beelaha Digli iyo Mirifle walaalahayna waa salaamayaa meel kastoo ay joogaan. ciidanka Koonfur Galbeedna waa salaamayaa oo isbaaradaas xaaraanta sharci darrada ah oo nimanka mooryaanta ah ay soo abaabuleen oo jidka dhigan qaaday waana dhiirigelinayaa guuleystaan leeyahay. marka waxaan kaloo leeyahay beesha Gaaljecel waan ku celinayaa mar kale in mar dambe Daahir Amiin Jeesow uusan maleeshiyaad soo abaabulin iska qabta qarniga hadda la joogo iyo sanadka hadda la joogo 2024 inuu Gaaljecel dhul u raadinayo oo maaragtay dhul si qalad xooga ugu raadinayo uusan helin. Gaaljecel waxay degaan Hirshabelle iyo Jubbaland. marka haddii uu argagixiso ka xoreynayo dee galbeedka gobolka Hiiraan iyo gobolka Hiiraan oo dhan bay joogaan. meesha beesha Xawaad la degan tahay oo ay ka xoreysteen maahane iyo beesha Baalacade intay degan tahay maahane dee inta ay Gaaljecel ku degan yihiin oo dhan oo galbeedka qoraxsinka way joogaan. haddii Daahir Amiin Jeesow uu ka xoreynayo argagixiso la diriraayo waxaan ku sheegayaa Daahir Amiin Jeesow meeshaan waxa weeye dowladda Koonfur Galbeed bay ka tirsan tahay meesha la yiraahdo Yaaqbari Weyne. way idinka ogolaadeen inaad soo degtaan beesha Gaaljecel dad shacab idinkoo ah oo u hoggaansamaya maamulka meesha ka jira Koonfur Galbeed. hadda adigu bal maaragtay Hirshabelle ka tirsan tahay Hirshabelle laga soo doortay bal car isbaaro dhigo meesha la yiraahdo Jubbaland. wallaahi bilaahi tallaahi hal daqiiqo 2 daqiiqo laga kicinayaa ama waxa dhigataa isbaaro waxa dhigataa haddii la ku wareeyaa gobolka meesha Hirshabelle maamulka Hirshabelle isbaaro dhigo
waa lagaa kicinayaa. Hal maamul oo ogol isbaaro in la dhigto ma jiro, lamana ogola. dalka jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan isbaaro meel laga ogol yahay ma jirto. Isbaaro waa xaaraan maqdaca. maamul goboleed isbaaro dhiganaya ma aragtay. maamul goboleedyada dalka oo dhan hal maamul oo isbaaro dhigan karaa ma jiro. markan baa ku celinayaa mar labaad maamulka Koonfur Galbeed waa salaamaya. Digil iyo Mirifle beelaha Digil iyo Miriflena waa salaamaya. Ha ogolaanina meelaha aad degan tihiin beelaha Digil iyo Mirifle deegaanada Koonfur Galbeed ciddii isbaaro dhigata iyo ciddii argagixisaha iska celiya oo la dagaalama. madaxweynaha Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen halyeeygan asagana waa salaamaya. waxaan leeyahay halyeeyga dalka dantiis halyeeyga dalka dan iyo dadka u halgamayo hawl kama daale weli waa hogadii hawl halyeeyga dalka dadkiiyo dalka u halgamayo hawl kama daale weli waa hogadii hawl. waxaan kaloo halkan ka salaamayaa beesha anigaan kasoo jeeday daarood, 5 daarood meel kasta ay joogto waa salaamayaa. salaan 14 boqolkan salaamayaa. isku tiirsanaadaan leeyahay. waxaan kaloo salaan iyo hambalyana u dirayaa dowladda qaatimo SSC oo shalay bisha ay ahayd 25 sanad guuradii kasoo wareegtay markii maleeshiyaadka SNM ay soo galeen gobolka Sool, laga saaray gobolka Sool baan dhihi lahaa magaalada Laascaanood, oo ay ciidamada geesiyaasha ay qaatimo SSC iyo Hiil Harti walaalahooda Harti ay ka saareen. waana salaamayaa dowladda Puntland iyo shacabkeedana waa salaamayaa. dowladda qaatimo ciidamada daraawiishta SSC waa salaamayaa. waxaana leeyahay ilaahay ha idin guuleeyo. waa isku tashateen adigu sida ula dagaalanteen. waa idin hambalyeynaya, waa idin salaamayaa. beelaha Harti meel joogaan iyo daarood weynana waa salaamayaa 5 daarood. waxaan kaloo si gooni u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda Puntland mudane axmed cilmi cismaan axmed karaash. halgamaagaas ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo. waa halgamaagii markii la xoreynayay dowladda SSC laga xoreynayay SNM maleeshiyaadka SNM gacan weyn ka qaatay ilaa haddana u heelan. asagana aad iyo aad baan u salaamayaa. ciidanka maaragtay geesiyaasha oo SSC oo heeganka ku jira iyagana waa salaam. madaxweynaha SSC mudane Cabdulqaadir Fardhiye iyo dowladda qaatimo gudoomiyaha baarlamaanka ciidanka qalabka sida kulli dee nimanka waqooyiga wareer waqooyi halkaa dariska ka tihiin. waxaan leeyahay dee ayagaaba dadka shacabka waqooyiga ayagaaba la afduuban oo ay maaragtay maleeshiyaadka SNM ayagay dhibaato ku hayaan oo ilaa iyo 90 sidii u afduubeen ilaa hadda waa afduubayeen. laakiin shacabka waqooyiga dee waa dadkaas shacabka waa dad gobax dad ka fiicanna maba jiraba sidooda. dadka shacabka waqooyiga degan waa dad fiican. marka waxaan leeyahay halidinka ammaan helaan leeyahay. dariska xushmeeya. hadeed gooni goosad iyo Soomaaliya ka go'aysaan iyo haddii kaleba Soomaaliya kulliba ma kala Soomaaliya ka mid tihiin dee nimanka dadka dariskiina ah oo SSC oo nimanka qaatimo oo dariskiina ah oo dulmiga marka horena ku soo weerarteen oo Laascaanood ma taqaanaa duqeyseen oo 8 bilood la abhinayay oo nimanka daraawiisheed ay abhinayeen dhahayeen walaalayaal waan ka xishoonay dhahayeen. dee waxaan leeyahay ammaan siiyaan leeyahay. nin walba meel baa ilaahay ku beeray. nimanka qaatimo dhulkoodii bay joogaan. ilaahay baana guuleeyay. tolkood baa u soo hiiliyay. waana xaq. idinkuna meeshiina jooga meesha deegaankiinu yahay iyo meelaha aad idinku leedihiin oo ilaahay idinku abuuray jooga. dhulkaas meesha aad degtaan dee gobolkaas Waqooyi Galbeed iyo gobolka maartay Togdheer iyo meelahaas inta ka degtaan jooga oo ilaahay meeshiina idinku amaansado. ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa salaamayaa. waa anigu Korneel Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad oo dabad jooga. waa ku celinayaa mar labaad waa ku celinayaa dowladda Koonfur Galbeed ilaahay ha guuleeyaan leeyahay. madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen iyo wasiirka amniga Koonfur Galbeed oo isbaaradii ku guuleystay nimankii cadowga ahaa ee maleeshiyaadka mooryaanta soo abjaray iyo taliyaha daraawiishta Koonfur Galbeed kulli si fiican talaan diirin baan u soo dirayaa. waana idin garab taaganahay annagoo beesha daarood oo dhan baa idin garab taagan. nimanka maartay oo ka soo jeeda ninkaas
fidmo wadaha oo daar amiin jees la leeyahay beesha uu ka soo jeedo oo Soomaaliyeed oo sharafta weyn anigu waxaan dhihi lahaa beesha gaaljacelay ninkaas dhibaato idiin wadaa qarniga sanadka hadda la jooga 2024 ku dhibaato idin gelinaya dulmi buu mataqaanaa dulmi buu abaabulaya dadka dhulka waa degayahay meelaha ay ka degan tihiin oo Ilaahay idinku abuuray oo Jubbada Hoose iyo Hirshabeelle degan tihiin Shabeellada Hoose digil iyo mirifle iyo biyamaal baa iskala degan dawladda Koonfur Galbeed ka tirsan tahay dawladda Koonfur Galbeed hawsha ay ka wado Shabeellada Hoosena aad iyo aad baan ugu amaanayaa wayna ku mahadsan tahay mar labaadna waa ku celinayaa madaxweynaha Cabdicasiis Maxamed Laftigareen aad iyo aad baan u salaamaya Ilaahay ha ku guuleeyaan leeyahay heestaas oo haday anduubeen iyadana waa kaas wadaniga waxaan kaloo ka hadlayaa dawladda Puntland waxaan arkay dad qaylqaylinaya oo dhahaya waxay dhahayeen waxa jirta muxuu ahaa sicir barar iyo gaajo iyo waxbay ka sheekeynayeen waxaas anigu ma garanayo meel laga keenay caabeynina leeyahay dadka reer Puntland gaajo iyo dhibaato ma haysto barwaaqi ku jiraan dawlad maamul Ilaahay sharfay oo xoog leh oo sharaf leh oo maamul awood weeye wax walbana waa yeelaan waa ogtiina mashaariic badan baa socoto oo hadda madaxweynuhu 8 mashruuc buu saxeexay waan la bilaabayaa yaanti dhaweyna madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa nimankii argagixisada ahaa ee cadawga ahaa dadka dhameeyay in toogasho lagu xukumay ciidamada qalabka sida Puntland ma hadda idin ka gaadhaan leeyahay waxa u dhaarateen Ilaahay ha idin guuleeyo argagixisadii toogashada lagu xukumay oo dadkii dhameeyay oo dadka kuwa waxaan arkayay waxay ma garanay dhahaya dad waxa ku jiray ma garanay dadka la tagtay kuma ay jireen niman mujriina oo dambiilayaal oo dadka dhameeyay ahaayeen oo qaa'imiin oo dalkooda qiyaamay marka in la toogasho lagu xukumo xaq bay ahayd gobolka Mudug amaanka sida loo sugay aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa madaxda barasaabka gobolka Mudug Faysal Sheekh Cali iyo ciidanka qalabka sida amaanka loo sugay ninka la yiraahdo Muumin Cabdi Shire iyo kulli waa salaamaya gobolka Mudug sida amaanka loo sugay argagixisadii looga nadiifiyay madaxweynaha Puntland mahada ka gaadhaan leeyahay marka ummadda Soomaaliyeedna khayr iyo bashbash iyo barwaaqa u rajeynaya waa anigu Korleen Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad oo dabada jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh